السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلي برنامج كيني arrimaha falsafada philosophy of life iyo murtida nolosha Nabi Maxamed Nabi nool naxariisina bidgaliyo korkiisa ahaatee Nabi Maxamed ilaa haatan taariikhda waa nabiga kaliya ee nool kaasi oo taariikhdiisu ay dhameystiran tahay. Nabi Maxamed waxa uu matala bini'aadanka si kasta iyo qaab kasta iyo dhinac kasta oo laga eegaba manu ahayn mid ka duwan dadkii uu la noolaaday, hase ahaatee wuxuu ahaa mid siday risaalad ka weyn iyo shariico markaasi ka qiimo weyneyd waagii iyo waqtigii uu soo baxay Nabi Maxamed. Nabi Maxamed taariikhdiisa waxaynu ognahay taariikhdii ka horeysay mugdigii ay Yurub ku jirtay iyo mugdigii uu ku jiray waqtigaasi dhulkii muslimiinta ee waqtigaasi loo yaqaan casriga jaahiliga ee uu ka soo baxay Nabi Maxamed. Nabi Maxamed markii koowaad ee uu ku soo degay waxyigu waxa uu ahaa ninka kaliya nabiga kaliya ee laga soo wariyay in uu ka baqday oo ka cararay waana takeeraysa inuu basharku oo dhami ka baqdaan wax samada ka yimi ilaa haatan oo aanay garanaynin. kadib Nabi Maxamed markii uu haddana ku adkaystay message-kaasi samada uga yimi oo ku kalsoonaaday oo gartay waxana inay tahay wax waajib saaran ah isagoo ku noolaaday goob jahliga iyo saxaranimada iyo diin la'aantu ay u ahayd meesha kaliya ee ay jirto. hase ahaatee Nabi Maxamed waxa uu rumaystay inay tahay waxaan loo soo dhiibay wax weyn oo muhiim tahay inuu gaarsiiyo. hase ahaatee dadkii ugu horeeyay ee Nabi Maxamed la dagaalamay waxay ahaayeen dadkiisa intii ugu dhaweyd. taariikhdana inta ugu dhow dadka cudamada dadkooda ugu dhoway qaar badan bay taageereen, qaar badan way la dagaalameen. maahana farqi hase ahaatee Nabi Maxamed wuxuu kaga duwanaa tasaamuxa dhawaanshaha dadka la dagaalamay iyo ka eryada iyo dhibaatada weynida loo gaarsiiyey taariikhdiisa waqtigaasi oo idil. Nabi Maxamed waxa uu guuray magaaladaasi Maka oo hijrooday Madiina oo hijrooday isagoo ka hijroonaya magaalada Maka. kadibna waxa uu la kulmay diin kale oo ka awood badnayd oo Yuhuud ahayd dadkaasi oo Bani Qurayda loodhanayay iyo qabiiladii kale ee la noolaa ee Yuhuud ahaa ee ku noolaa magaaladaasi Madiina iyo dadkii kale ee Nabi Maxamed taageeray ee ansaarta ahaa ee iyaguna ku noolaa isla magaaladaasi. hase ahaatee Nabi Maxamed waxa uu halkaasi haddana kaga guuleystay oo kaga saydareeyay oo haddana uu guul weyn kaga gaadhay in uu la kulmo diin ka aftahansan ka weyn ka fac weyn kana aaminsan aaminaada ka dheer dad badanna haystaan. hase ahaatee ku guul daraysatay inay furato xataa isla magaaladiisi ay Madiina ee ay xukumaysay oo ahayd diintaasi Yuhuud. waana taariikhda mid cajiib ah Nabi lugeynaya oo soo galo magaalo kale oo dad kale oo diin kale ee haysato waana midaan dhicin dubna aanu dhicin. isla guushaasi haddana uu ka gaadhay iyo cadaawadaasi iyo dagaaladaasi dheer ee dhex martay Yuhuudda iyo saamaxaadaasi dhex martay iyo ku noqoshadiisii Maka iyo cafiskaasi weyn ee uu fidiyey ee noqday taariikhda mid aan lama ilaawi karin markii uu cafiyey dadkiisii. waxa uu dheeraa Nabi Maxamed taariikhdiisa inuu lahaa qiyam iyo akhlaaqiyad waana mid ka fac duwan kana mug duwan dhammaan dadka kale ee taariikhda ku hab lagu xusayo. Nabi Maxamed ilaah buu aaminay عز وجل إلهاسي وأمسنا نبي محمد نوح النقضي إن الإله أنا أقولين ظلمي دجالك أنا أقولين اعتداء أنا أقولين أنا عرورته لله يو إلا حتى قانون كأدون كوجول دريسنا يا إن له أخلاق تاسي لملا وأنا تعنت كويدين كريم نبي محمد وهذا قال يهان وكريه وفقد كاسي أو أها ودقيس أما لورن كروحها ورلد لكن ما هو نقنين. waxaa kaga duwanaa in ragii ugu dhawaa ee isaga cadaawada uu qabay ee dagaalka cadaawada ugu qabay aanay saasi waarag qaarkoodna ay noqdeenba kuwo hogaamiyayaal ah sida Umar ibn Khattab oo noqday boqolka nin ee ugu sareeya dunida taariikhdooda mid kamid ah isaguna ku biiray. haddaba Nabi Maxamed maxuu u nool yahay maxay tahay ma wuxuu u nool yahay taariikhdaasi faca weyn ee ka haylay Naasir Saarawid ninkaasi la yiraahdo وهاتن كأورورية إن كده كنتن مجلدات تاسي أو أي كجيران وحكستا أو كمية تاريخ نبي محمد صلى الله عليه وسلم وغيران كبيهيسي دقن كيسي فكر كيسي سعود كيسي وحكستا سياسة ديسي دقاليهيسي دنعيسي ميلتري دنعيسي فكريات iyo dhinaciisii diineedba dacwadiisa dagaalkiisii guushiisii iyo guuldarradiisii oohintiisii iyo farxadiisiiba murugadiisii guurkiisii iyo guur la'aantiisiiba furitaankii iyo isqabsigii isaga iyo dumarkiisa iyo taariikhdii Nabi Maxamed way qoran tahay. waana taariikhda aanad qof kale oo aanad ugu dhawaan karin sida aad ugu dhawaan karto Nabi Maxamed. Nabi Maxamed waxaad ugu dhawaan kartaa si aad ugu dhawaan karto qofka aad ugu jeceshahay noloshaada. waxaad garan kartaa wax kasta oo aad uga baahan tahay ayaad baari kartaa sidoo meerin jiray sidoo eega sidoo fikirkiisu ahaa
waana ninka keliya ee lahaa mistaaqiyada iyo awoodda powerkaasi ah in uu ku dhawaaqo shayga uuna noqdo ka ugu horreeya ee fuliya isagu, mana uu dadka ugu yeedhin wax aanu isagu fulinaynin. taasi oo lagu tilmaamo waxyaabaha ugu adag ee ducaadda iyo boqorada iyo cid kasta oo ummad xukuntayna ay ku guuldaraysato. dowladdaasi oo Nabi Maxamed aasaasayna waxay ahayd dowlad mid ka mid ah dowladaha ugu waaweyn taariikhda inta la arkay. awgeed sida ay dad badan oo cudamaahi uga fakareen Nabi Maxamed, haddaynu in yar oo kooban iyadana ka soo qaadano Thomas Carlyle iyo Leo Tolstoy iyo Michael Hart iyo Bernard Shaw, dhammaantood waxay ku itifaaqeen in Nabi Maxamed ahaa ka basharka iyo bini'aadanka ugu weyn. difaaciisu sharaf buu inoo yahay innaga inaynu u difaacno ka ummad ahaan taageersan. laakiin qof kasta oo aan taageersanayn difaaca Nabi Maxamed waxa uu yahay isagana sharaf markuu difaaco qofka keliya ee basharka ugu mudan in la difaaco, kaasi oo ah Nabi Maxamed, kaasi oo ahna in ay tahay sababta ay tahay inaynu difaacnana ay tahay shariicadiisu inay tahay mid ka sarraysa kuwa kale. waana waajib bini'aadanimo marka uu inaga mid noqdo mid ka mida bini'aadanka uu ka mid yahay mid Maxamed oo kale ahi sawir Bernard Shaw inaynu difaacno isagana. haddaynu in yar ku noqono taariikhda oon dib u eegno maxaa Faransiisku ku keenaya in uu cadaawad gooni ah ka muujisto, maxaa ku kalifaya Emmanuel Macron inuu noqdo ninka keliya ee isagu si gooni u ataago nin taariikhdiisa aan la bedeli karin. dowlad kasta oo ka dambeysay maabcad alxadaasa waxaa loo yaqaanaa ama dowladaha galbeedka ee waqtigan dambe soo baxay, mushkiladooda koobaad waxa weeyaan waxa keliya ee saabitkaas ama sawaabita loo yaqaanaa way ku adag tahay dowladahaasi, maadaama oo wax kastaba lagu bedeli karo qaanuunka. waxa aan la bedeli karin waa shay aad u adag. diintuna waa inay noqoto flexible, yani wax la bedeli karo, wax qaanuunku dhex geli karo, wax aynu inagu wax ku dari karna ama wax ka reebi karno. muslimiintu cid kasta waxay u ogol yihiin ama ay u ogolaadeenba xataa in taariikhdooda wax laga sheego. beenna maaha in muslimiinta taariikhdoodu ay leedahay mugdi aad u weyn, hase ahaatee taariikhda galbeedkuna waxay leedahay mugdi kaasi kasii laban. mushkiladuna maaha inaynu isku haysano taariikhda uun. mushkiladu waxa weeyaan taariikhda waxaa ku jira isagana nin ka weyn taariikhda waxaa ku jira qof ka horeeya taariikhda iminka, kaasi oo Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam, kaasi oo aanaynu ka sheegi karin beenta aynu doonayno inaynu ka sheegno, kaasi oo qarnigii 17, 18 iyo 19 iyo xataa qarniyadii dhexe ee galbeedka ma jirin qof laga sheegay beenaha ugu badan taariikhda bini'aadanka. Nabi Maxamed baa ugu badnaa qof leh galbeedku uu ku dheeldheelo. Nabi Maxamed baa ugu badnaa. hase ahaatee saa ogeed haddana Faransiisku kuma uu nasanin in uu ku guulaysto in islaamku uu ka soo saaro haddana iyo mabaadi'daasi wanaagsan ee uu xambaarsanayeen muslimiintii haysatay wadamadaasi Jazaa'ir iyo Mali iyo Afrikaba ay ka soo saaraan haddana Faransiiska isla dhulkoodiiba. dagaal aan ilaawi karin way jiraan oo dhexmaray Faransiiska iyo muslimiinta waqtigii muslimiintu ay Andalus haysteen. laakiin waxaasoo dhan waxaa soo koobaya maxaa xorriyadda tacbiirka ka dhigaya iminka inay noqoto midda ugu muhiimsan ee ayn Nabi Maxamed lagu weeraro. ma ahayn xorriyadda tacbiirka kaliya. maxkamadda Yurub waxay ogolaatay xorriyadda ra'yiga ama xorriyadda aragtida aanay ku jirin dhaleecaynta Nabi Maxamed, aanay ku jirin xorriyadda aragtida. hase ahaatee Faransiisku waxa uu ku dhiiranayaa markasta inuu ku daro taasi xorriyadda, taasi oo ku tilmaamaynin inay tahay ceebayn. waxaan isla ognahay Holocaust oo iyada ah majaasirtii ama madaabixtii ama dabargoyntii uu Jarmalku u geystay Yuhuudda ilaa haatan laguma dheeldheeli karo meel dunida, waayo waxaa nool dowlad u gargaaraysa inaan lagu dheeldheelin taariikhdaasi. saa awgeed bay u fool xun tahay in cid kasta oo nool taariikhdeeda lagu dheeldheelo. anigu halka waxaanu aragnaa Nabi Maxamed inuu yahay mid nool intii Ilaahay ka doonana uu noolaanayo, maadaama aynu ognahay wax kasta oo noloshiisa ka mid ah. taasi ayaana keenaysa qofka inuu ogaado qabrigiisii, noloshiisii. waana nabiga keliya la ogyahay qabrigiisa, nabiga keliya la ogyahay halkuu ku dhintay, bartu ku noolaaday, inta uu ku koobnaatay taariikhdiisu. waa nabiga keliya la ogyahay nabiga keliya ee og tahay haatan in uu isku koobsaday 3, 4 iyo 5 dhinac oo nolosha ka mid ah. kaasi kala inuu ahaa nabi ku deeqayay dacwad ruuxaaniyada,
kaasi ahaa mu'asis ama dhise dowladeed iyo fikradeed, kaasi oo ahaa dhise dhaqaale, kaasi oo dowladdiisaasi ay lahayd waxyaabo dhaqaalaha looga tegaya, kaasi oo ay lahayd dowladdiisaasi. hase ahaatee iyadana ay u dheerayd in dowladdiisaasi ay lahayd akhlaaqiyaad dagaal oo ka duwanaa dhammaan dowladaha kale ee waqtigaasi ku meersanaa. tashanaadna waxa weeyaan ilaa haatan taariikhdu kaga jiro mugdi weyn dad badani waxa weeyaan nin 40 jira siday rag 40 jira intay u rumaysteen ay amarkiisa u adeecayeen, sidaas amarkiisana ay ugu arkayeen amar ilaahiya, kaasi oo naga noqon karin, kaasi oo dhimashadiisu ay ahayd mid sugan, kaasi oo lagu kala dhaqaaqayay. may fududayn waqtigaasi iyo casrigaasi in la helo bushar iyo majmuuco sidaasi waana sida ay sugayso taariikhdu. hase ahaatee waxa ugu filan Nabi Maxamed gargaar iyo nuur dadka uu ka tegay iyo nolosha uu ka tegay ayaana ugu filan wanaag. ma difaacayna inagu dagaal kasta iyo jihaad kasta oo laga qaado galbeedka ama dadku ay sameeyaan. mana difaacayna sida Abu Mus'ab al-Suuri uu ogol yahay jihaadka fardiga in qof kastaaba uu qof kale ku weerari karo galbeedka haddii uu sameeyo ficil. hase ahaatee taasina waa ficil qalad uu sameeyey qof. qaladka dowladaha iyo dadku ay sameeyaanna waa qalad ka duwan qaladka uu sameeyo qof kaliya. saa awgeedna qaladka laga gala taariikhda waa mid mugdi weyn. Nabi Maxamed difaacidiisu waa mid waajib ku ah bashar badan, isagoo aan loo difaacayn diin ahaan, taasi oo ah sharaf, isagoo loo difaacaynin jacayl, taasi oo ah waajib. hase ahaatee aanu difaacayno inuu ahaa midka ugu fiican basharka eed akhrida taariikhdiisa, waana midka ugu fiican eed ku dayan karto basharka, waana qofka ugu fiican eed ka ogaan karto wax kasta oo aad doonayso inaad ka ogaato taariikhdiisa. saa awgeed uma baahna Nabi Maxamed taariikh cusub oo cidi u qorto, ee waxa uu u baahan yahay fikir cusub iyo indho cusub oo ku arka noloshu inay ka duwan tahay argagixiso iyo argagixiso la dagaalan. hase ahaatee aanay hayna ishayn diinta iyo diin la-aan, ama aanay haynba fikirkeedaasi. noloshu waxay ka weyn tahay, taariikhdu waxay ka weyn tahay in aad aragto, ama waxay kaa tusaysaa dhinac weyn inaad tusto ood ka eegto. waayo Nabi Maxamed 99% dadka raacsani waa dad nabadgeliyada jecel. taasina waa fikirka halka ugu sarreysa, maadaama ay dadkaasi oo dhammi nabad ku nool yihiinna ma odhan kartid waxuu ahaa nabigii dagaalka. maadaama oo malaayiin iyo malaayiin muslimiin oo wadamada daafahooda ku nool Indonesia, India iyo wadamo kaleba aanay ku raacin Nabi Maxamed dagaal, waxaad ogaataan inaan Nabi Maxamed wax keliya u raaca aanay ahayn dagaal. waxaa Nabi Maxamed ugu raaca waa fakarkaasi oo u baahan indho aragti dheer leh, kaasi oo keenaysa in qofka fakeraya uu fahmo maxaa uu Nabi Maxamed u nool yahay ee u dhinteen dhammaan taariikhyahankii iyo cudamadii waaweyneed ee taariikhda ummadaha soo martay. farqiga keliyana waxa weeyaan wuu ka wada weyn yahay.